gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe ayaa waxaa gelinkii dambe ee maanta kormeer uu ku tagay xarunta loo diyaariyay in khudbadahooda ay ka jeediyaan musharaxiinta madaxweynaha ee tiradoodu ay ka badan tahay 30 taasi oo ah teendhada Afisiyoni oo isaguba lagu doortay. waxaana halkaasi uu gudoomiyaha si toos ah u kormeeray sida goobtaasi loo diyaariyay isagoona ku bogaadiyay ciidamada howlgalka ATMIS sida ay waajibaadkooda u gudanayaan loogana baahan yahay inay sii xoojiyaan. dhinaca kale howlgalka ATMIS ayaa warbixin ay soo saareen waxay ku dhawaaqeen in bandow ay ku soo rogeen agagaarka teendhada Afisiyoni ama guud ahaanba xerada Xalane, isla markaana inta doorashooyinka ay socdaan halkaasi dhaqdhaqaaqeeda aad iyo aad loo xakameeyay. waxaana tallaabadan loo arkaa inay tahay mid lagu xoojinayo amniga goobta doorashada madaxweynaha ay ka dhici doonto, isla markaana waxa ay tahay markii ugu horeysay oo Aadan Madoobe uu kormeer ku tagay goobtii lagu doortay, halka aysan ahayn markii ugu horeysay oo ATMIS ay ku soo rogtay bandow rasmi ah agagaarka xerada Xalane oo ay ku dhex taalo teendhada Afisiyoni. waxaana lagu sheegay in uu sii socon doono bandowgan ilaa iyo 5 maalmood ee soo aadan, waxaase axadda soo aadan oo doorashada madaxweynaha la qaban doono la filayaa kadib in bandowga halkaasi laga qaado. muuqaalkan aad dhameysatay la sii wadaag asxaabtaada kale mahadsanid.